إلهي بمهله waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan waxgaradka reer Puntland aqoon-yahanada dadka sharciga yaqaan iyo ummadda Soomaaliyeed waxa arrin la yaab leh haddana soo gaaray sagaalkii fiidnimo oo ahada 28 bisha Oktoobar 2018 Abdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland oo yiri waxaan ciidanka biliiska ka ruqseeyay gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Samatar Layli isagu Puntland wuxuu ka qabtay hal xil ah oo xilka madaxweynaha ah anigu Puntland waxaan ka soo qabtay 20 xil dawladii Puntland oo soo jirtay markii uu Abdiweli Maxamed Cali Gaas musharax ahaa waxaan ahaa dadkii amniga sugayay oo waliba sargaalkii wakiilka u ahaa General Saciid Maxamed Xirsi Siciidere sargaalkii wakiilka u ahaa oo amniga nugaaleed sugayay baana Abdiweli Maxamed Cali Gaas musharaxa waxaan ka soo kaxaynay oo soo kaxaynay oo soo galbinay oo soo dhaweynay annagoo xil dawladeed aniga oo haya oo ah taliyaha taliska guud iyo deegaanka ciidanka daraawiishta arintaas iyada ah awgeed Abdiweli Maxamed Cali Gaas markuu arkay aniga firfircoonaantayda iyo kartidayda wuxuu yiri waxaan ka soo bedelay ciidanka daraawiishta waxaan ka dhigay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal muddo hal sano iyo xoogaa ayaan ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal wuxuu ii bedelay misna akademiyada Carmo oo ciidankii booliska Puntland oo dhan ku xirooday ayuu ii bedelay halkaas oo saraakiishu badnayd laakiin wixii la igu bedelay anigu aan u akhrisanayay kamaarmo waa inay tahay oo ciidanka firfircoonay ayaan jirin buu isku beegay ciidanka xirooday iyo isagoo xilki taliyaha qaybta iga qaaday oo iga dhigay taliyaha akademiyada Carmo waxa la yaab ah anigu darajadaydu waa darajo qaran waxaan u dhaartay dalka waxaan u dhaartay diinta waxaan ahay sargaal saraakiisha qaranka akademiya waxbarasho iskuul Abdiweli madaxweynuhu arinta iyada ah waxa iga qaadi kara sida qaynuunku yahay oo aniga darajada iga rifi kara ama ruqsayn kara saddex mas'alo ayaan ruqsadaydu ku imaan kartaa codsi aniga iga yimaada oo aan codsado in la ruqseeyo geeri igu timaada oo aan dhinto saddex maxkamad anoo dambi qaran galay oo maxkamad la soo saaro dabadeedna xukun igu dhaco saddexda qodob ayaa ruqsadaydu ku imaan kartaa laakiin jaariyad guri qof uga shaqayso waa ku ceyshay waa ku ruqseeyaa ma ahi shaqaale hatta qof kasta oo muwaadina wuxuu leeyahay xuquuq maxaan ku raahdaa iyo sharci haddii sharciga la waayo halkaas waxaan malaynayaa la talin la'aan inay ku timi aqoon la'aan inay ku timi waxaan kale ummadda u shaacinaya madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed saraakiil sare oo ciidamada ka mid ah oo ciidankii qaranka ah baa mucaarad ku noqday waxay tageen eelaf weyn
oo kala soo dagaalameen weli waa ruqseeye ma oran Adam Muse general Adam Muse jannada raxma Allah siiyo isaguna sidoo kale ma maqasheen bulshoy sargaal hebel baan ruqseeye waa waxaan jirin Cabdiraxmaan Faroole sargaal uu ruqseeyay oo yiri waa ruqseeye oo lama arag xilka waa laga qaadi karaa shaqadana waa laga fariisin karaa arinta marka iyada arin madaxweynuhu si qeyr sharciya ugu talaabsaday baan aragnaa waxaana leena waqtiga harayba waa dogta oo ku haray imri tagana ceeb laguma sagootiyo arintaasuna waxaan iga yeelimaysay adiga iyagu ku yeel madaxweynuhu wuxuu samayn karaa shaqada iyo xilka inuu iga fariisiyo markaan shaqo xil hayo uu iga fariisin karaa laakiin ruqsadda tani waxay ku timaadaa wax iska dhayala maaha waxa ka muuqata lugtayda midigta inay go'an tahay anoo lugtu go'an tahay kuma dhalan waxaan u soo maray dalka iyo dadka dagaal difaac jiritaan arinta marka iyada waxaan leenahay hawshaas iyada anagu anaan ganaax waa leenahay haddii aanu dambi kalno maba aaminsanaan dirana munaakiiska leh nalooma yeelin dhaxlana kama weydiin waxaan xuquuq iyo lacag iyo midna ka hadlimayo oo taa umada og kama ka hadlayo waxaan doonayaa oo waliba hadda u hadlayaa oo rajo ka qaba dawladda cusub inaan ka noqdo miisaano waaweyn oo waliba aan ka dhicin taliyaha ciidanka biliiska oo xil ka hooseeya aan qaban karin iyo taliyaha ciidanka daraawiishta xilalka noocaasa oo taliya madax bannaan baan xataa rajaynayaa inaan ka qabto isaguna magacu isagu raacaya waana ka baxay